daaya inaa iska kaftamayo wallahi kaftaniga ma aha way iska qoslay because qalbiga ay qaboobay maaha inaad baratid magaceeda waxa baraha bulshada ku isticmaasha laakiinse waxa muhiim ah inaad ogaatid qisada dhabta ee qabsatay gabadhan Soomaaliyeed inkastoo gabadhan social media ay caan ka tahay gaar ahaan aaladaha TikTok iyo Instagram ay mararka qaar kaliya gaagaaban ku soo gudbiso sidoo kale waxa isku soo duubi jirtay ciyaarta qobka ciyaarta ee afka qalaad lagu dandaansiga hadii aad doonayso muuqaalka inaad wax badan ka ogaatid xogta rasmiga qisadan gabadha heshay aad ka xun fadlan muuqaalka like saar channelkana subscribe saar si aanu gaarno hadafkeena 100 oo subscribe waad ku mahadsantahay la socodkaaga ee ku soo dhawaada mar kale muuqaalkeena haddaba daawada gabadhan waxay ku riyaatay riyo aad xun markaad adiga muuqaalkan daawanaysa aad maqashaad u naxaysan inkastoo gabdhaha xijaaban tahay imika laakiin say ku soo martay waqti aad u xun oo aan laga sheekayn karin waxa lagu yaabaa in ay nolosheeda ay ka tirtiri wixii xuma ay soo martay hadda laakiin gabadhan ka sheekeynaya waa Amal Diamond laakiin samaaha inaad magaceedan ku sheegaan ku soo gudbina muuqaalada hore xuma halkan laakiin muhiimadda ayaa ah inaan hadda ka hadalno qisada qabsad sidoo kale waxay ku sugnaantay magaceeda waa Amal Diamond gabadhan oo la kala sheekaysan markii ay sidoo kale xaalka imika ay ku sugantay waa mid aad u wanaagsan gabdhaha Soomaaliyeed ay ku dayan karaan taas macnaheedu u dhigan in baraha bulshada ay ku sheegtay in ay gabadhan Soomaaliyeed ka baxday wixii xumaayo sidoo kale riyooyinkan ay ku riyootay Amal Diamond ayaa ah mid aad u cabsi badan dhowr habeen marka lagu soo celcelin jiray riyooyin iyadoo la cadaabiyo dhowr su'aalo aad u adagna lagu garaacayo kadib iyadoo qabri xunna aad u jiifkaasoo su'aalo dhowrana lagala daado oo lagu dhahay markii aad ifka joogtay maxaad isku soo qaawan jirtay sidoo kale waxa muhiim ah oo dad muhiimadda asalka tahay in looga gabdhaha Soomaaliyeed ee ka duway muuqaalkan ama riyooyinkooda soo bandhig markii Amal Diamond soo bandhigi kartay bulshada Soomaaliyeed ay la wadaagi kari weyday qisada ka qabsatay in ay isticmaasho isqaawiso baraha bulshada gaaraan aalada TikTok Amal Diamond markaad xasuusto magaceeda maqashid waxaad xasuusanaysaa in ay tahay qof u haweyn in ay ku biirto dadka Kristaanka sidoo kale Amal Diamond waxay aad ugu dadaashay in ay la kulanto fanaan ugu caansan baraha ama dadka dunida maka fanaaninta kaasoo lagu magacaabo Diamond isagana haddaba halkani waa channelka xubinta wararka waxaan ka codsanaa inaad channelka subscribe saarta like na saarta muuqaalkan ku mahadsantahay la socodkaaga iyo fiirsada muuqaalka